بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دمان ciidamada meeshan ku wada sugan iyo saraakiisha waxaan u maleynaa maanta waxaan isku imaanay iyo waajibaadka aan rabnay inaan gudanno qof walba hadda meeshan ku sugan waa ogtahay wadankana xaaladda uu ku sugan yahay waa wada ogtihiin waxaa tihiin qayb ka mid ah ciidamada howlgalka aadi doono oo dalka dib u xoreyntiisa ka qayb qaadan doono deegaanadii aad ka imaateenna oo adinka waalidkiin iyo hooyooyinkiin iyo qaraabadiin kulli ay ku nool yihiin xaaladda ay ku sugan yihiin waa ka warhaysin meeshaan waxaa lala dirirayaa niman cadowgaas oo wax oo u dhaafay dadkaas oo hadda haysto aysan jirin meel walba ay dadka ka weerareen dadkii beeraleyda ahay waxay ku dhaheen wax beeraa oo aad beeri kartiin ma lahan dadka xoololeyda ahay nin walba neefka ugu jiray arigiisa ama geeliisa ay kala baxaan ilmihii yaryaraay markay soo weynaadaan mid walba markuu soo qaangaaro waa laga wadanaa markasiyaa lagu wada daraa waa la wada askareeyaa mar walbana hooyadiis iyo waalidkiis waxaa loo soo sheegaa gobol hebel oo ku dhintay waxaa kale ay ugu sii dareen dhaqaalo joogto ah oo qof walba meesha uu joogo looga qaadaa wuxuu raba ha ahaado oo aan waqti lahayn oo maaliyad ay ugu yeeraan waxaa taas ayadana uga sii daran oo ay ugu sii dareen xurriyad la'aan oo dadkaas maanta wax xurriyada iyo sharafa iyo magaca ay haystaan inaysan jirin waxaa kaloo u shaneeya oo waxba aysan u samaynin inay dumarkooda iyo gabdhaha mid walba markii la soo qaangaaro waxay rabaan ay ka samaystaan ee ay wataan waxaan ka rabnaa marka dadkaas dhibaatadaas ku jiro maanta inaad ka dhex bixisiin adinkaa leen ka rabaa nimanka saa u malaysiin maahano nimanku saas geesiyaal saas uma wada ah markay baabuurta isku soo xidhaan bisay ummadda qarxi yaqaanin maahane ma naf badna taargeday annaga noo tahay micnaha waxbaan ka raadihaynaa ma ahan micnaheeda marka inaan magaalada qabsadana waxaa ka u dhabar jab adag ayaga in magaalada intaan qabanna dadkii ugu muhiimsanaay oo indhaha u ahay aan ka soo qabsan waa nooc loogu talagalay nimankan in lagu argagax geliyo magaaladaas marka intaan la aadin ka horna inta qofoo ku nool waxaa lagu daraa qorshaha dagaalka lagu daraa magaaladaas marka waa la arbushaa waa la dhibaateeyaa wixii ku jirana waa la soo qabtaa hal xaba lagama soo tago laakiin ayagoona ogeyn ayaa lagu sameeyaa waajibaadka in saaranna waay mas'uuliyaddaas marka inay saaran tahay inaad dareentiin oo qof walba uu dhabarka u xirto oo niyaddiisa intaas ayadoo ku taagan tahay oo goobtaas dagaalka markaad isku footi saartiin aan niyadda ku haysin intaas hal la ogaado asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh soomaaliya